السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا كوبعية سوفتوير آلابات قبرتين كورسوين kala duwan dhinaca accounting iyo economiga iyo business kaba. Marka cashkeeni 13aad qaybta practicalka QuickBook 2016 baanu maranaa. Cashkan wuxuu ku saabsan yahay credit activity. Credit activity waxa loo yaqaanaa inaad la socotid deymaha dhaqdhaqaaqooda. Deymaha aad dadka siinaya waa imise marayaan, customerska aan deymaha ku leeyahay intay gaarayaan, mid kasta imisaan ku leeyahay saad ula socoleed maadaama ay tahay deyntu qaybta ugu weyn ee ka ciyaarta businesska. Marka casharkani intaas ku saabsan yahay dhinaca practicalka naga daawada. Marka aanu dhinaca practicalka ku soo leexano saad ula socotid customerska deymaha ka qaataan waxa tagaysaa marka ugu horeysa report, then waxa tagaysaa customer and receivables halkaas laga eegaa, then customers balance summary aan iska weynaysiisto. Marka waa ka deymihii intan qofaan ku leenahay. Marka halka hore wax ku soo baxaya magacii businesskaaga, halkaana waa deymihii dadka ku kaleed. Marka deymo waxa total ahaan wax kaaga maqan 336 deyn baa ku maqan oo customerska kaaga maqan. Isa fudud baad u ogaan kartaa in deyntaadii hore u kacday ama inay yaraatay. Marka Cabdinajax oo kale waxay ka maqan 32, geed wax kaaga maqan 20, jaan wax kaaga maqan 34, maxamed cali wax kaaga maqan 250. marka deymaha gisaas loo socdo hadda rabtid Cabdinajax muu kaaga qaato 200 isaga ku dul dhifo. Marka invoices waxyaaluhu bixiyay iyo waxyaaluhu naga iibsaday yaa ku horsiifa balkii wixii oo dhan muu ku soo kala jaraya oo sadaka isaga ku siinaya. Ka ugu horeysa alaab naga iibsaday, dan lacag buu bixiyay, dan discount baan u sameeyay, dan invoice alaab kale naga iibsaday. Marka dhaqdhaqaaqa mid kasta wasii dhexgelaysa wad ogaanaysaa wixii lagu leeyahay. Kan oo kale geedii wuxuu 20 kan naga qaatay wasii dhexgelay. marka activity-gan uu sameeyay mar lacag buu alaab naga iibsaday, lacag buu soo celiyay, discount baa loo sameeyay, hadana alaab kale naga iibsaday. marka dhaqdhaqaaqiisa saas loo soconaysaa xitaa wuxuu deynta kaaga qaatay saas loo socona. marka casharkeeni inta yar ee koon ku saabsanaa si loo socodsiin dhaqdhaqaaqa customerska buu ku saabsanaa deymaha qaybaha deymaha. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.